بسم الله الرحمن الرحيم كسر واد دغيستيال برنامج hor leh oo aynu bixinay suugaan iyo sooyaal barnaamijka suugaan iyo sooyaal waxa uu ka warrami doonaa suugaantii hodanka ahayd ee ay curiyeen maansiyahanadii raaci hore ee maasada sida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo boqolaalkii la midka ahaa iyo hal-abuurada hadda nool ee suugaantoodu shilistahay kana warrama waayaha nolosha ee inagu gadaaman nabad iyo colaad tahriib iyo wixii aafaa bulshada kamida iyo sidoo kale waa sooyaal oo ka warramaya taariikhdeena quruxda badnayd iyo ahaanshihii aynu lahayn hanka himilada iyo taariikhaha aan duugoobin ama aan carjabin ee inoogu suntan sooyaalka taariikhda ee ay tahay fac dambe inay ogaadaan si ay uga dhambiil qaataan kuweenii hore dhageystayaal barnaamijkeena waxa inoogu martiya hal abuur Cabdiraxmaan Maxamuud Yuusuf oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Xiire waa hal abuur kamid ah hal abuurada daayirta ee ku nool dalka waa hal abuur leh suugaan shilis oo kaga warramaya waayaha nolosha aanu niraahna Cabdiraxmaan ku soo dhawow barnaamijkeena suugaan iyo sooyaal bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay mawlid aadan biixi aad iyo aad waad mahadsantahay walaal Cabdiraxmaan bal dhageystayaasha iyo adigu isbarto oo waxaad ka warantaa taariikhdaada kooban halkii aad ku dhalatay inahaas mawlido taariikhdeedu waxaan ku dhashay meel miyi ah oo u dhaxaysa magaalada Salaxley iyo magaalada Balgubadle oo Sudda la yiraahdo ama Candho dhexe waxaan dhashay hilaadihii ilaa 1900 iyo 84kii sidaan ku qiyaasayo waqtiga ayaan dhashay inta badan waxaan ku soo barbaaray miyi iyo hadii la ku ruuyay xoolo dhaqato anigoo barbaaray ayaan magaalada soo galay markaan magaalada soo galayna qaybahan waxaan galay laga shaqeeyay dhismaha iyo aqoontooda waan imaka ka gaaray inaan injineer ka noqdo shirkad dhismood oo la yiraahdo Mahuraan magaalada Hargeysa ayaan deganahay marka inta ayaan ku soo koobi lahaa waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xiire goormay ahayd markii koobaad ee aad istareentay inaad leedahay hibada maansa curintu mawlido waan jeclaa suugaanta laakiin waqtigii imaka aan igu horeysay aan hal abuur sameeyo waqtigii horeysay ma garanayo laakiin waxaan garanayaa ilaa 2000 iyo muddo 8 ah ayaan bilaabay inaan wax curiyo oo aan garanayaa taasoo aan dib u joojiyay intaan dhalinyaradii ila noolayd kula noqday hadii la ku ruuyay hal abuurkii oo aan maaragtay ugu gabiyay dabeeto waxay u dhalatay abwaanadii Soomaaliyeed hore sida aynu ognahay afkooda waxay ku weerari jireen ama qabiil ama qoys ama qod sida darteed waxay ku ila noqotay arrimo badan oo ay lahaayeen inta badan cuudka iyo hadii la ku ruuyahay caruurtaba hadii aanu eegno waxay ka hor noqon jireen dad aanay inta badan ku baraarin waxa aan isiri afkooda bay eersadeen dabeetana markaan arkay inuu gabaygu hoos iiga dhacay oo aan dhalinyaradii ku weeraray waan joojiyay haddana muddo ka bacdi muddo ilaa 3 sanadood iyo 4 sanadood ayaan joojiyay dib baan u bilaabay haddana laakiin ka wacatay ma jari hore walaal waan ka leexday waan joojiyay gabi ahaanba waxaan ka sii xusuustaa gabayga aan ku joojiyay baas lagaga toogtiyay alloo bixiyay mooyaane hadduu bahal dadqaadii halqi kama badbaadaan kaasoo aan nin ku durayay aan dhaliilayay dabeeto gabaygaasaan ku mamnuucay oo inta uu ka badnaa markaasaan ku daayay haddana dib baan adigu igu soo celiyeen intaan arkay hal abuur si hufan u gabayaya oo heer sare ah waa tahay waa caado hal abuuro de marka u horeysa aad bilaabayso way dhacdaa inaad u bariiqato gabayga waxa jira hal abuur iyagu taa ka duwan ama sumada hore aan lahayn waxa jira taxriirada xuswaano oo ka warramaya asturka iyo xijaabka bal ka warantaa goorma tiris walaal ma sida xuska waan mawlido waxay soo baxday bishii afraad ee 2016
waqtiga ay soo baxday waxaanay ka waramaysaa dumarku sida ay ku qurux badan yihiin inay tahay xijaabka oo ay xidhaan oo aanay ahayn inay isqaawiyaan waxaanay ku bilaabaysaa sida tan gabadhaan xijaab dheer lahayn xiiseheed dhimaye xurma malaha xawalay maryaha kor waxaan sheertaaye isha lagu xadyaa iyo si kale loo xodxoodayaaba waa xoolo bacad yaal hablaa xaga shaafaytaaye xinahooda iyo waa bilaash cadar xayaabuye xabaa lagu adke waa ibliis xagay asluubtiye hiddaa xiisan bay doonayaan inay xuumeeyaane xilkaasnimaan ahayn iyo hanfadee tala xun mooyaane xila saamad laabtii kalgacal kuma xooraystaane gabadhii xafidan buu nin ragii xila ka yeeshaaye waxaanay xabiib kula dhashoon xaasidka aqooni xigtanimada soomaalidiyo xeerka dhaqankeenna xuska waana inan kugu digo waa xaq lay faraye xafidno walaal ceebta waa laga xishooday xafidno walaal ceebta waa laga xishooday raggu xuural cayn inuu kasbado wow xarbiyayaaye dhabel buu wada xaydan yahay xulashadeedii wuxuu tacabka ugu xiiqi waa xiliyo awlaade gaaridaa xijaab kale nin helay xiisihii bogaye xaraguu ku noolaanayaa xay intuu yahay wuxuu haysta xoolaba hadduu siiya xididkiisa xusuus kuma damqayaane wuu ku xamdiyayay xusuus kuma damqayaane wuu ku xamdiyayay xub caara inantaan maryaa xidhan la maamuusiye marwadii nafteeda xafidaa xaasna kaafidaaye gudashada xaqa ilaahay bay xaadir noqotaaye xasilooni bay waalidkeed ku xushmadaysaaye maxagxaga tasaygee xurmay kula xaayadaaye caruurtay xanaanada habtaa xuma ka dhowrtaaye xigta iyo qaraab iyo milgay xidid ku soortaaye xawalayda diinta leh waxaa lagu xusaa khayre waxaan ahay xabiib kula dhashoon xaasidka aqooni xigtanimada soomaalidiyo xeerka dhaqankeenna xuska waana inan kugu digo waa xaq lay faraye xafidno walaal ceebta waa laga xishooday mulidow xuska waana gabayga la yidhahdaa intaa ayuu ku edil yahay waa tahay waa tixaado qiimo badan oo dee ruuxii maqla ee ku dhaqma wax weyn ugu filan waa waana qiimo badan oo dee ay tahay hablaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay maanka ku qabtaan xafitaan oo qaataan waxa kale oo kamid ah Cabdiraxmaan Halabuurkaaga tixda la yaa softaran habow bal ka warnayadu goortii soo baxday iyo dulucday ka warramayso mawlido softaran habow waxay soo baxday 24kii bishii koobaad ee 2016 iyaduna waxa ay ku soo baxday dhalinyaradeennan wadanka loo uriyay ee ka tahriibaya ee dalal aanay iyagu lahayn ama nimco aanay samaysan dhulkoodii uga barakacay ee ka dhumbahay oo badda ku dhammaaday iyaguna aan wax dheefin dadkii dhalay iyo dalkana dhibay oo inta waalidkood wixii hanti ay lahaayeen raaciyo haddana intoodii badnayd badaha ay ku dhinteen taa ayuu ka dhashay walaal gabaygan waa tahay softaran habow wuxuu ku bilaabayaa isna dhalinyaro isansaankii gobeed seegta maarinkeede sifaalaha barhkiin lagu arkanaa sabi ma yeeleene mala saaxir idin duufsadaa saar idin tumaye caqligii saliim ihii xumaha wuu ka saalaalaaye idinkoon sabool mudan faqrigu siibay hiilibkooda sadyaraana baahida u qadin subax ayaankiinna oo hilib la solay waalidkiin idinkuu soorayey oo saraara burbuuran iyo xaydh la soocon waayey waxa silic idin loogeeyiyo sayma iyo hooga ee badaha ugu saydhanteen maanku siixi waaye
miyasaad ufteen garashada lagu sugnaaday miyasaad ufteen garashada lagu sugnaaday walow ay barhkiin saxan yihiin lana saalugaynin dhallinyaroy sansaankii goobeed seegta maarinkeede salfudayd ku liibaan ma dhalo sahan la'aaneede softaran habow baa tihiin seetadii jaraaye sadku waa qoraal eebbe iyo siinta xooluhuye safariyo tahriib laguma helo saayidka maqaane saxiixa alla ruuxii qawaday soomalhaad muday waxaad haysataa lagu sabraa subaxba waayaay waxaad haysataa lagu sabraa subaxba waayaaye markii uu ilaahay sikhiray dunidan seeskeeda aadmigan karaamada sitana saaray guuradeeda ee qaranba saamiga u helay sabada u yaallo dhaqaalaa dadkani wuu sinaa sadis maa dheerayne sabol waxaa ka dhigay maanta qayb sadaqa loo dhiibo barna ay sodcaal ugu kaceen samadan guudkeenna dadaalkoodii bay qaarba sidaan ugu sugnaadeeni ummadii hurdada seexatuu saxalku fuulaay ummadii hurdada seexatuu saxalku fuulaay dowladahan sareedada heliyo sabanbaar waa qaadka dadunbaa sameeyee nimcaduu sooma daahiriine saxaray ku noolaan jireen duusha siigaduuye sabarkoodu waayuu godnaa silic daaradiiye caqligooda duunyay saxeen sare u qaadeene markaasay dhulkii siidhka iyo sarac ku beereene markaasay dhaqaalaa sanceen sayladaha yaalle idinkuna sidaa waa kartaan ina saamaysaane suxullada ciddi laabataa kuma saalaxaane haddaa suudashaan iyo haddaa nala sugnatanba soomaali uunbaa tihiin sidhma doorsamaaye saamiga dalkiinna u hesheen sida ka yeeshaane sare inaa u qaadaanna wuu idin sugayaa sare inaa u qaadaanna wuu idin sugayaay dhallinyaradu waa xoogga sugaa qaran saamayntiiye dhallinyaradu waa sahnadii quruxdu saarayde dhallinyaradu waa soda cilmigu saablayda u yaalle dhallinyaradu waa sahaamin iyo han iyo sadaale waa kuwii suldaan noqon lahaa ama saraakiile waa madaxdii saakaba arlada ugu saarayn layde waa kuwii dalkoo samata baxaa suuragelin laye waa kuwii siraad noqon lahaa suula maadowgiye waa kuwii sifayn la dulmiga saaqay noloshiye waa kuwii sabolkooda qaday saacidii lahay waa kuwii xaqa u soorilaa saalixii iyo tuuge waa kuwii mas-uul qarankan siraysee la geelin laye waa kuwii qabyaaladaa sunta aasaydha oo dhan laye idinkuna sidaatiin markaan anigu suureeyo idinkuna sidaatiin markaan anigu suureeyo inkastoo barsuubani jiraan badankiin suuraafiye sawirkiinan joogiyo qalbigan yurub saqaafaya sidee horuu mar lagu gaadhayaa sidaani wayaa weliyo isaguna intaa ayuu ku idil yahay gabayga sooftaran habow waa tahay sooftaran habow waa tix dee aan ku koobnayn tahriibe ka warramaya kaalinta dhallinyaradu ay ku jirto qaran iyo ummad lagana sugayo dee faca jooga intii ay fakan lahaayeen inay kana aaminaan waxaa ku ahaadaan ummaduhu dee dunida ku nool cabdiraxmaanow waa kala dhaqan waa kala mabaadi waa kala aragtiyo soomaaliduna dee waxay ahayd ummad leh dhaqan iyo sooyaal hufan oo sharaf badan oo sariigasho leh oo waxisisiin leh oo kala dambayn leh waxaa jirta tixaad kaga warramaysa sooyaalka oo aada u bixisay gobaysani iyaduna goortay soo baxday mawlidu tixdan gobaysana waxay soo baxday walaal 17 bishii 6 iyaduna 2016 waxa ay ka warramaysaa sidii dalku barwaaqada u haan jiray
iyo sida haddii la ku rumayay noloshii aan soo gaadhay oo aad u qurux badnayd berigii aan garaadsaday nolol imaka aan geyga Soomaaliyeed laga joogin ay ahayd oo qurux badan taa ayuu yara faahfaahinayaa gabayga la yiraahdo gobaysani waxaan ku bilaabmayaa sida tan jirgoodleeday cirkoo gibil xidhoon meel gabaali muuqan heegooyin girgiiran iyo waqala guud fuulay guulaama dhaysiyo fadiyo gaadhis waada haysta gudgude horay danab gowle iyo galayaax muusoodle miregelin dhaxaadkii hurdada gama ku diida iyo guudka hormayay barqada geydha kuugu saydha gobaysane hagaagoo gal iyo goofba waada buuxo gobaysane hagaagoo gal iyo goofba waada buuxshay dhulkoy xareed guduudani martoy xadhay guuradiisa talsan dhuugana iyo lahayn shilin gaabareeya oo aan guyaal hore la degin guri caswaalide dareemada isgoysiyo cagaar dharab ku gowdiido maajeen gardhowdiyo xarfiyo dixiga munsartay maadhgadafta kala seexisoo gees walba u ciirtay gumashaa bislaadiyo madheer rucubtuu goobaysay dhafaruur guduud noqotay iyo ciid gollaha raaray hobaan malabka soo goocayoo himirku guud laalan hohob goraada laalaadisoo gogoshay hoosteeda ubax gobol bacan yahay dhirtoo saartay guuradeeda shinni malabka guranaysa oo guudka kaaga xoonsan shimbiraa giblanayo mashxarad farax la geeraaray gelin xoolahoon daaqahayn geedaha isdhaafay gelin xoolahoon daaqahayn geedaha isdhaafay raysimaada geeloo xeryaha geliga loo ooday tiftii horaaba gaanaha rimee gooja koor u qaaday iyo goodir wada xiisan iyo qaalma dhoogorgooyey baarqab abasixii gorooriyo roorsan gaarab weynta oo goolashiya qaalimada gees isugu soocay dhaqayada candhada giijisoo gaawa laga buuxsho iyo igadh maqaar lagu godloo gaban saalaaxayo gunuunaca haleelada dhasho gaacan maaqasheeda wadaagaha galool ruudahoo loogu sheeday geela karuurkiyo listoo golahayaal gaaxdii laga maalay marka shaqal cad loo geliyey iyo gorofyo ceegaaga sibraar ganaaca buuraayo oo tiirsan gaarabkooda labhadyada dadkoon gubeeninoo caana laga geegay qofba goortu dhowr goor ka badoo gees isaaga riixay oo gacaalka soo maraa bidhaan loogu gaacan haadshay gemaankiyo fardaad danaanayo farowgu goobeeyey oo godankii dooxooyinkiiyo haragaar duur jooga oon guluuf colaad iyo rogaal gelin ayaankooda oon laga gayoonayn haddaad aragta guudkooda oon laga gayoonayn haddaad aragta guudkooda goosgooska beeshoo degmada guri dhiigow taalla oo reerba geestii tusmida geliyey maalkiisa mustambeed gadaal laga marsho guudka kaaga meersan aqalladoy ka mooseen gabdhuhu daadka gaalistiisa oo labaa daryaala garkiyo dhidibka loo giijay oo kashkaashka caws gogol la dhigay loogu gaama raaxo dumarkoo gadhoodhkiyo dhitada weelka goodan buuxshay burcadkoo gacma loogu riday ubad gaararyaystay baqbeenay iyo heemaar goriyo mid la kaala goobay ubasixin gugii hore la lulay jiifa guudaheeda ubasixin gugii hore la lulay jiifa guudaheeda martidoo gola loo dugsiyey gobiyacaadkeeda martidoo golaha loo dugsiyey gobiyo caadkeeda culimada garhka casloo digriga gaasa biixinaya alla bariga geel lagu qaliyo adhiga gaggaaban oo gudurka kaymaa dhexyaal haadu guuranayso
goosgoos xariiriyo haween baralay guusaya gashaantimo mulaax diirayo maadhna guuranaya geed waaban xeer beegtidoy taalla googoshoodu iyo guurtidooyaysato xaaja guudanaysa dhalinyaro gudoodiga ciyaar goobku wada dheela gaafiyo caruusiyo mashxarad garab dhigma muusle gaafiyo caruusiyo mashxarad garab dhigma muusle galladaha ilaahay maxaan godolka soomaalay ongoosh nimca afiikisoo nabad kuu gowdiiday noloshaan garaadsaday markaan gaar u faalanqeeyo goortaan xusuustaba maxaan gelin u muusooday oy beri samaadkii galbaday gocana salaabto mawlido isaguna intaa ayuu ku idin yahay gabayga gobaysana la yidhaahdaa waad mahadsantahay cabdiraxmaan gobaysana dee waa gabay quruxdiisa iyo murtidiisa iyo deegaankiisa iyo lahaanshihiisuba ay ka muuqato tixda gudaheeda dhegaystayaal intaasay noo ahaanaysaa barnaamijkeenii suugaan iyo sooyaal oo uu maanta marti inoogu ahaa cabdiraxmaan maxamuud yuusuf oo ku magac dheer cabdiraxmaan xiiray sidaa iyo ismaqal dambe oo qiimo badan